bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa maalinimo khamiis ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 19 bisha 3 sanada 2020. qodobada aad ku daawan doontaan janalkeena xogwada janal haddii uu eebaraali ka noqdo waxaa ka mid noqon doona diyaarad ka timid imaaraadka oo laga celiyay Hargeysa iyo go'aankii dowladda federaalka oo dhaqan galay, madaxweyne Dani oo aqbalay inuu Muqdisho yimaado, liiska xildhibaanada cusub ee maamulka Koonfur Galbeed oo la shaaciyay, Somaliland oo eedeysay filla Soomaaliya kadib celintii diyaaradda Fly Dubai, maxkamadda ciidamada qalabka sida oo sii deysay mas'uuliyiin lagu soo eedeeyay inay ka mid yihiin Al-Shabaab. qodobadaas iyo qodobo kale ayaa janalkeena xogwada janal ku daawan doontaan. haddii ay tahay daawada markii kugu horeysay, fadlan subscribe inoo saar si aad u heshid wararka aan halkaan soo gelino, lana sii wadaag asxaabtaada adigoona u sii sheergareynaya. waadna ku mahadsan tahay ka mid noqoshada saaxiibada janalka. diyaarad ka timid imaaraadka ayaa laga celiyay Hargeysa iyo go'aankii dowladda federaalka oo dhaqan galay. diyaarad rakaaba oo ka timid dalka isu tagga imaaraadka carabta ayaa lagu soo waramayaa in saaka loo diiday inay ka degto garoonka diyaaradaha Cigaal International ee magaalada Hargeysa ee Somaliland. wararka ayaa sheegaya in diyaaradda ay lahayd shirkadda Fly Dubai ay dib ugu laabatay dalka imaaraadka carabta iyadoona ay dejin rakaabkii ay siday. sida ay ogaatay warbaahinta ayaa la sheegayaa in hay-adda duulista rayidka hawada ee dowladda Soomaaliya ayaa duuliyaasha ku wargelisay in diyaaraddu aysan ka degi karin magaalada Hargeysa iyadoona la fulinayo amarka ra'iisul wasaaraha ee ka hortagga cudurka coronavirus. arrintan ayaa sidoo kale kusoo aadeysa iyadoo maanta uu dhaqan galay go'aankii ay dowladda federaalka ku hakisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ee Soomaaliya. sidoo kale wararka ayaa sheegaya in ilaa iyo hadda aysan wax diyaarada ka soo degin garoonka Aadan Cadde kadib go'aankii dowladda federaalka. wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayaa isniintii shaacisay in xanimaada ay socon doonto muddo 15 cisho sababo la xiriira cudurka coronavirus. tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha ay dowladda ugu hortagayso cudurkan iyadoona dhammaan albaabada iskugu laabtay goobaha waxbarashada ee magaalada Muqdisho. madaxweynaha Puntland Dani ayaa aqbalay inuu yimaado magaalada Muqdisho. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa lagu wadaa inuu dhawaan soo gaaro magaalada Muqdisho ee Soomaaliya kadib casuumaad uu ka helay dowladda federaalka Soomaaliya. Dani ayaa ku dhawaaqay go'aankan booqashada Muqdisho kadib kulankii golaha wasiirada Puntland ee maanta ka dhacay Garowe, kaasoo sidoo kale looga hadlay qodobka kale oo ka mid yahay coronavirus. booqashada Dani ee Muqdisho ayaa ku timid heshiis cusub oo dowladda Puntland ay la gashay wafdiga dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan Garowe, kaasoo ka qayb galay shirkii wadatashiga Puntland. madaxweynaha wuxuu sidoo kale sheegay inuu booqan doono magaalo madaxyada dowlad goboleedyada kale ee dalka Soomaaliya iyadoona safarka uu noqon doono midkiisii ugu ballaanaa tan iyo doorashadiisii sanadkii tagay. Puntland ayaa waxaa weli ku sugan wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad. dhanka kale, kulanka Dani iyo wasiirada xukuumadda ayaa lagu go'aamiyay in wax ka bedel lagu sameeyo warmatiyeedkii ka soo baxay shirkii wadatashiga Garowe, kaas oo haatan dib loo saxay 2 qodob oo ay ka biyadiideen wasiirada heer federaal. warmatiyeedka ayaa laga saaray qodob sheegaya in Puntland ay qaadan karto go'aan kasta oo la gudboonaada haddii ay dowladda Soomaaliya aysan tixgelin go'aanada Puntland ka soo saartay khilaafka labada dhinac. sidoo kale waxaa dib u saxid lagu sameeyay qodobka sheegaya in Puntland ay shir ku casuuntay saamileyda siyaasadda Soomaaliya, taasina waxaa lagu bedelay in Puntland ay shirka ku casuuntay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka. liiska xildhibaanada cusub ee maamulka Koonfur Galbeed oo ugu dambeyn la shaaciyay. guddiga madaxa bannaan ee xulista baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed ayaa waxa ay ku dhawaaqeen liiska xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada Koonfur Galbeed oo ka kooban 95 mudane. guddiga ayaa sheegay in wadatashi dheer oo ay la yeesheen odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed kadib ay soo xuleen liiska xildhibaan oo muddo badan ay ka tagneed isqaqabsi dheer oo aan ilaa hadda la xalin. sida ay ogaatay warbaahinta, inta badan xildhibaanada la soo xulay ayaa ah kuwa ay keensatay dowladda Soomaaliya, waxaana kursiga xildhibaannimo loo diiday dhowr mas'uul oo hore xil ugu soo qabtay Koonfur Galbeed, gaar ahaan kuwii la soo shaqeeyay madaxweynihii hore ee maamulkaas Shariif Xasan Sheekh Aadan. guddiga xulayay xildhibaanada oo ahaa agaasimayaal iyo shakhsiyaad ka tirsan shaqaalaha dowladda ayaa shaqada u qabtay sidii ay dowladda ku amartay, oo ahaa in xildhibaanada noqdaan kuwa daacad u ah dowladda oo ku shaqeeya rabitaankeeda. xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed ayaa dhawaan waxa ay dooran doonaan gudoomiye iyo ku-xigeenadiisa iyadoona la dhaarin doono. Somaliland ayaa eedeysay filla Soomaaliya kadib celintii diyaaradda Fly Dubai.
Somaliland ayaa si rasmi ah durba u xaqiijisay in amarka lagu celiyay duulimaadka Fly Dubai ee maanta ka degi lahaa garoonka diyaaradaha ee Hargeysa ayaa bixisay dowladda federaalk ee Soomaaliya. Diyaaradan laga leeyahay Imaaraadka Carabta oo ka timid Dubai ayaa waday rakaab balse waxay ku laabatay magaaladii ay kasoo duushay kadib markii lagu amray inaysan caga dhigan karin madaarka. Xukuumadda Muqdisho ayaa mamnuucday duulimaadyada caalamiga ah tallaabadaas oo qayb ka ah ka hortagga fayraska sida degdega ah ku gaaray adduunka oo idil ee coronavirus. Maamulka Muuse Biixi Cabdi oo xayiraad noocaas soo rogay ayaana isu tagga Imaaraadka ku daran liiska dalalka ay saameynayso. Warsame Ducaale oo Somaliland u qaabilsan qaramada midoobay ayaa Twitterka kaga falceliyay go'aanka lagu celiyay diyaaradda ayaa wuxuu ku tilmaamay fal argagixiso. Villa Soomaaliya waxay ku dhawaaqday dagaal ka dhana Somaliland. Diyaaradda Fly Dubai waxaa loo sheegay inaysan ka degi karin garoonka diyaaradaha ee Cigaal ee Hargeysa. Tani waa barta weecashada. Waxay hadda tahay fal argagixiso ayuu yiri wakiilka. Xilli uu u muuqday mid dalbanaya sharaxaad wuxuu intaasi raaciyay argagixisinimada siyaasadeed iyo tan dhaqaale aan loo meeldayin ayna wado Villa Soomaaliya waa in laga jawaabaa. Sida kuwa kale ee caalamka garoomada diyaaradaha magaalooyinka Soomaaliya ayaa heegan ku jira cabsida COVID-19 aawadeed. Saraakiil caafimaad oo baaraya rakaabka diyaaradda ayaana ku sugan. Cilinta diyaaradda Fly Dubai ayaa ku soo aadaysa iyadoo mar sii horeysay ay labada dhinac u dhaxtiilay xasarad siyaasadeed oo ku saabsan wada hadallada iyo socdaal la codsaday in madaxweyne Farmaajo uu ku tagayo Hargeysa. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dib xorriyadooda u siisay rag uu ku jira gudoomiye ku-xigeenkii Afgooye. Ismaaciil Aadan Cadow, Cabdikariin Nuur Maxamuud, Cabdi Jaamac Cabdi iyo Daahir Cali Cabdi ayaa loo soo xiray inay ku lug lahaayeen qarax ka dhacay gurigii uu deganaa gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada gobolka Shabeellaha Hoose Cumar Maxamuud Cilmi kaas oo sababay dhimashada marxuumka 6 November ee sanadkii tagay. Hay'adaha ammaanka ayaa soo kala xiray 4 tuhunsane xilli kala duwan waxa ayna ku kala wareejiyeen xafiiska xir ilaalinta ciidamada qalabka sida bartamihii December iyo dabayaaqadii January. Ismaaciil Aadan Cadow ayaa ahaa gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada degmada Afgooye. Cabdi Jaamac Cabdi ayaa ahaa gudoomiyaha waaxda ceelasha biyaha. Cabdikariin Nuur Maxamuud ayaa ahaa beeraley halka Daahir Cali Cabdi uu ka tirsanaa ciidanka ilaalada deegaanka Manishibiyo. Xafiiska xir ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa ku soo eedeeyay 4 ruux inay ka mid yihiin Al-Shabaab iyo inay ka dambeeyaan qarax uu ku geeriyooday Allah u naxariistay Cumar Maxamuud Cilmi oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada gobolka Shabeellaha Hoose. Mid ka mid ah qareenada u doodayay eedeysanayaasha ayaa maxkamadda u sheegay inaysan jirin wax cadeymo ah oo muujinaya inay ka dambeeyeen ragga qaraxa uu ku geeriyooday gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Shabeellaha Hoose. Sidaa darteedna ay codsadeen inaan loo ciqaabin natiijada tuhun aan buuxin shuruudaha eedda. Maxkamadda ayaa ugu dambeyn go'aamisay in 4 eedeysane ay xor yihiin haddii aysan jirin eedo kale oo loo haysto sida uu warbaahinta u sheegay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada 1 ee ciidamada qalabka sida.